baahan tahay gargaar caafimaad oo degdeg ah. guud ahaan gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco iyo deegaanada hoos yimaada waxa ka taagan xaalad caafimaad darro oo aad u daran. Guryaha badankooda dadku waxay la jiifaan xumad jiifisay oo safmar ah. Qoyska ka kooban 7 qof ugu yaraan 6 ilaa 5 qof ayaa xumadaasi u jiifa. waxaa lagula tacaalayaa dadkaasi cisbitaalada kala duwan qaar guryaha sidoo kale farmasiyada ayaa la tacaalayaa. balse maanta waxaa muuqata daciifnimo iyo sidoo kale gaabsiga dhinaca gurmadka caafimaadka iyadoo xumadan safmarka si ba'an ugu faafayso magaalada Burco iyo sidoo kale deegaanadaasi hoos taga. haddana wax gurmad degdeg ah kama muuqdo wasaaradda ku shaqada leh iyo sidoo kale hay'adaha mas'uulka ka ah badbaadinta nolosha bulshada. dadkii bukaanka ahaa waxay ku sii badanayaan guryaha xarumaha caafimaadka cisbitaaladuna waa ay buuxaan halka farmasiyaduna awoodi waayeen daboolidda baahida daawo ee jirta. taasi beddelkeeda dadku wali ma helin jawaab muuqata oo ah gargaar degdeg ah ama qorshe cad oo lagula tacaalayo xaaladda caafimaad darro ee halista ah ee ka soo cusboonaatay magaalada Burco. Burco waa laf-dhabarta bulshada gobolka Togdheer mana mudana in dadkeedu ku noolaadaan xaalad gurmad la'aan ah. waxa waajib ah in wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale wasaaradaha kale ay khusayso ay si degdeg ah u qaadaan tallaabo wax ku ool ah ka hor inta uusan cudurku isu bedelin nasiibo guud oo saamaysa gobolada kale ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. caafimaadku waa nolosha bulshada. dib u dhac kasta oo gurmad ahna wuxuu halis gelinayaa jiritaanka dadweynaha gobolkan. waxaa jaam noqday meel walba oo calaamad caafimaad ku sawiran tahay. ma maqlaysid dhawaqa ambalaasyada balse waxaad arkaysaa gurmadka bajaajka 3 taayirleyda oo keliya. magaaladii Burco xaalad caafimaad darro ah ka taagan. weli lama garan haybta xanuunkan khatarta badan ee ka dilaacay Burco.